بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين akhyaarta sharafta badan wasiirada waxaan ku ilaadaa duubabka isimada culimada gabdhaha Soomaaliyeed sharafta badan warbaahinta aad iyo aad waxaan uga mahad celinaa aniga iyo ragga la socday sida sharafta leh qiimaha leh qadarinta leh ku soo dhaweeyay dabcan safar midka ugu fiican waa midka aadan baasaboorkaaga la soo bixin aadan baasaboorkaaga u baahnayn aeroboorkan ka soo dhoofnay aeroboorkan nimid xaafad inaan ka baxnayn xaafadda kala tagna u bay noo tahay waana quruxda qarannimada ay leedahay qaranku markuu mid yahay quruxda uu leeyahay kamid tahay wadamo badan oo xataa adduunyada aan hal qaran isku ahayna mararka qaarkood baasaboorada iyo nidaamkaas ka dhaafo laakiin hadda anaga gurigeena baan ka soo baxnay qolaan ka soo baxnay qol kale aan galnay laakiin akhyaar aanan ayaanta arkin inaan aragnan aan u baahnayn baan u nimid aad iyo aad waxaan uga mahad celinaa iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo reer Puntland oo idil waxaan uga mahad celinaa soo dhaweyntaas qiimaha badan waxaan rabaa markii anoo qadarinayo waqtigiina inuu aad iyo aad u kooban yahay dhowr waxyaabood inaan idin ilaahdo marka koowaad waa mahadsantihiin marka labaad meeshaan iyo meelo kale waxaan u tagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxa aan u hayn inaan u sheegno shalayta kala ma hadli rabno laakiin waxaan kala hadli rabnaa maanta iyo berrito waxaa noo muuqda Soomaaliya sida ay taasi ka wanaagsan inay heli karto inay heshana wax oo culays badan oo lama arago lama maqlo ma ah kaliya waxay u baahan tahay inay tashato ay arisanto oo waxa ay isku og tahay dad matali kara ay wax u dhiibato oo qaadi karo waxaan idhaahdaa meelaha markaan tago Soomaaliya waxa ka qalloocday qaranku waa ka dheeliyay laakiin waxa ka qalloocday waxa ugu weynaa siyaasadda tareenka motorkiisa haduu ka halaabo qolalka oo dadku ay la raaco ama kuwa jiif loogu talagalay ha noqdaan ama kuwa VIP ha noqdaan ama kuwa caadi ha noqdaan macna ma yeeshaan hadaan ka tuura dadka Soomaaliyeed markay business ka yihiin dadka kama tayayaro markay wax baranayaan adduunka kama liitaan markay dirayaan xataa adduunka waa in badan oo kamida waa ka diracsan yihiin
laakiin mushkiladu waxay ka timaadaa siyaasadda markii la soo gaaro amba waxaa la yidhaahdo shaqo wadareedka amba qaran isku wadka amba isla socashada meeshaa bay naga beeshaa meeshaas eedeeda bulshadu ma wada laha siyaasiga soomaalida ahaa iskale muddo dheeroo daraaso ah iyo muddo dheeroo ka shaqayn ah kabacdi waxaa ii soo baxay waxyaabo badan oo muhiim ah oo ku aadan siyaasadda marka koowaad horta waxay ka eedahay ay ka bacdaa adduunyada dadka waa loo xulaahoo siyaasadda soo dhacsi kaliya ma aha kenya annagana la darisa sawir waxaa jira 4 ay ku sawiran yihiin madaxweynihii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kan hadda joogo kii afraad oo carruur ah waa isu muuqdeen madaxda dad la dareemi kara ay ahayn maag iyo maalin ku soo bood amba habeen ku soo bood ma ahaan jirin marka bulshadu waxaa fiican dadkay soo fiiqato inay siyaasadda u soo hormaraan taas waa qodob waxa kale eedaa siyaasadda Soomaaliya oo loo baahan yahay inaan ka saxno waxa la yiraahdo dadka in inta la hiikiciyo waxaan socon karin loo sheego been loogu qoosho birita ay socon weyso amba marka hore inay socotaan loogu talagalay oo siyaasigii la rabay in laga aamino midka ugu runta badan inuu yahay oo waayeel qaran inuu yahay oo wax isku wadid leh oo wax isku maslaxa ah laga aamino inuu been meeran yahay oo dad waaweyn ay yiraahdaan marka waxa la sheegay wixii waxba ka jiri maayaan taasna marka hore jidkii laga soo dhumay ahaa dadka sidqiga diintu ay noo sheegtay in loo sheego dadka runtu way deeqdaa dadka Soomaalida in la marin habaabiyo oo hayinkicin been lagu sameeyo uma baahno inaan carruurteena shaqo u helno waxbarasho u helno caafimaad u helno isnabadgelino dhulkeena ku noolaan karno karaamo ku lahaano cinwaan ay noo ahaato dalkeena noo ahaado location Soomaaliya cunsurka Soomaaliga lagu yaqaano oo aan yeelano intaas oo idil waa waxaan heli karno waxyaabaha kale marka adduunyada ayna dheer tahay meelo badan oo kamid ay dheer yihiin hor u kaca iyo wadooyinka iyo waxyaabaha noocaas marka talada la isla helo wax kale waa la isla heli karaa Soomaaliya waxaan u wadnaa annaga talo in la isla helo la wada xaajayso xaaladda la isku ogaado garaadka Soomaalida la maalo intaan jeebkooda la maalin intaan dhiidkooda la maalin caqligooda la maalo waxa ka imaanaya la maalo waxa ay ogol yihiin oo iyaga ka soo fulo markaas la wada meel mariyo meelaha markaan tagno dadka wuxuu sheegidiisa kaliya ku mashquul laakiin waxaan ku mashquulnaa wax ka dhageysigooda niman wasiiraha fadhiyo amni bay ka soo shaqeeyaan warbaahin ay ka soo shaqeeyaan dalkan markii la joogo waxaa loo baahan ama deegaankan markii la joogo in dadkaasi tajrubooyinka amba waayo-aragnimadu waxay u lahaayeen laga dhageysto dad waxaa jira dhaqan soo jireen ah oo wax soo kala dhaqay in la dhageystay u baahan yihiin fariintan siyaasiyiintu ay diraan kaliya annagu ma wadno dhageysi waa noo dheer hamigeennuna waa birito iyo maanta laakiin shayto waa wax laga yimid taariikhyahan baa iskale waxa kale dadka ku aadan waa inay wax ka bartaan taas markaan halkaas uga baxo qanaaco dhammaystiran oo bulshada Soomaalida ku soo kordhaysa ayaa jirta oo ah sina inaan loo kala maarmin cunsurka Soomaaliga ahaa meel ka soo joogo aanu sina u kala maarmin midna hadda dalkii iyo shuruucdii iyo ay isla leeyihiin midna xataa jinsiga isla leeyihiin oo ganacsigoodii waxooda waa isu gudbi karo dadka Soomaalida ah intaas oo siyaasadda Soomaaliya ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa inay ka warqabaan waxaan meeshaan u nimid arrimaha iyo arrimo kale oo fara badan waaye dadka waxaan u sheegaynaa in dhageysigeena oo ka badnaa doono dhihitaankeena oo ka badnaa doono inaan u nimid inaan wax korsano waxna aan sheegno waxa aan wadanana la qiimeeyo dalkuna qiimeeyo dalka Soomaaliya carabta waxay yiraahdaan assalaalim tuqsal min fوق jaranjarada kor laga soo bilaabo nadiifinteeda waayeelnimadu villa Soomaaliya ka soo bilaabanaysa deganaanshaha iyo dal isku wadida iyo dad isku haynta kor ka soo bilaabanaysa qorshaha qaangaarka ay aragtida islaamka kor ka soo bilaabanaysa markaas ay hoos soo deey kartaa laakiin waa marka hore waxa la sheegay wax dadkaaga aad ka soo ururisay oo ka soo dhageysatay inay noqdaan haddii adiguna maankaaga waxa ku wata aad la timaado dadkaaguna waa adii kale ay saaran yihiin kala leexataa tihiin adiga un baana leexanaya maahayna dadku isla jirayaan isku hayn baa noo qoondaysa dadka shaqada baan u sheegnaa waxaan idhaahdaa Soomaaliya waxaan ka damacsanahay horta kow meel lagu noolaan karo inay noqoto sida hadda aan nahay oo bay'adu ay tahay oo nabaddu ay tahay oo caafimaadku uu yahay
oo shaqa la'aanta dhalinyaradu ay tahay si lagu noolaan karo ma aha guri kaas intaasoo dhalinyaro ah oo amba wax barata amba wax baran oo shaqa la'aan ha joogto qofkaan wax baran xataa shaqo xaq u leeyahay qofkii wax bartay shaqo xaq u leeyahay haddii shaqa abuurkaas aan la samaynin oo dadka saas shaqa loo abuurin waxaa dhalinayso dalku inuu dadkiisa ceshan waayo dadkuna dalkooda ay joogi waayaan waana burbur meesha ugu horeysa oo dal la soo daliso marka Soomaaliya meel lagu noolaan karo Soomaaliya waxaad ka soo qaadaan libaaxyadii iyo maroodigii iyo ugaarti kale xuduudaha inay ka tallaabeen dadku kale ma tallaabin xuduudaha xayawaanka baa ka tallaabay meel libaax ku noolaan waayo oo mas ku noolaan waayo oo seedad ugu noolaana maska haddii geedka la jaray oo dhulka la baneeyay meelihii uu ku dhuuman jiray la waayo waa u baxa dadkuna way ka daba baxayaan midda labaad waxaan idhaahdaa Soomaali anagu qarana oo jamhuuriyad ah aan dhaxalnay amba aan ku dhalanay haddana in badan oo kamid waa kala maqan yihiin oo Soomaaliya way kala maqan yihiin dawladda inteeda kale in la isu doonay rabaan nabad la isku doono waxa la heli karo waay laakiin waa aragnimo dulqaad sabar iyo waxa qaaliga ah raadinaysa waxaad ku bedelanaysa inay ka dhaweysan yihiin ay u baahan tahay waxaan ka yiraahdaa barihii dambe Soomaalida dhowr arrimood waxaa jirta ay ka gudisnaayeen dunida qaaradda Afrika waa mid koowaad iyaga isdoonto markay midoobayeen waa mid labaad doorasho xor oo xalaal ah madaxweynayaashooda ku kala bedesheen markii ugu horeysa waa mid saddexaad waa dalka kaliya intii isdilay asagu isdoontay ee ismaslaxday ee carti isku tagay ee aan isdooranna yiri ee ku heshiiyay inay markaas isdoortaan oo doorashooyin gooraysan oo goobaysan oo la isla og yahay oo la wada aqbalo natiijada marka hore la tartamo ku heshiiyay cidna qasabto ma aanay jirin wadamada qaarkood way kala adkaadaan markaas midkii adkaada wax maamula anagu kala ma adkaan qaarkood waa la qabsadaa gobonimo u diray ku midoobaan qaarkood adduun kala isu keeno oo mideeyo anagu waa ismaslaxan isla joogaas bariyahan dambe wax waa naga soo galay dib u heshiisiin iyo ismaslaxaday rabtaa iyadana waa u taaganaa qodobka saddexaad bay noo tahay amba si kala darnaanne oo koonfurta iyo muqdisho iyo inta ka gadaalaysa wax u darnaadaane waxaa jira amni darro baaxday oo dad Soomaali ku abtirsanay laakiin aragti Soomaali aan xambaarsaneyn oo shabaab la yiraahdo oo daacish la yiraahdo ay dalka ka wadaan dir iyo dad iska dhicin bay naga rabtaa ka bacdina inta wada hadal bay naga rabtaa in lagu dhameystiro iyadana amniga inaan ka shaqeynaa rabnaa wax laga qabto oo Soomaali isku ogaato tan ugu dambaysa waxay tahay Soomaalidu waxay haysato oo xoolaha ah waxay haysato diinta awal waxay haysato xoolaha waxay haysato islaanshaha ah waxay haysato macaadinta dhulka hoostiisa ugu jirta ah iyo mid guudka u saaran waxa ka la mid ah diinta ka muhiimsan laakiin inta kale ka muhiimsan meesha ay ku taal madax badan oo waaweyn adduunka mid waxay yiraahdaan Soomaaliya meesha ku taal markaan aragno waa masaylna waana loo soo muraadaa waana la soo raadiyaa baabul mandab iyo khaliij cadan aan ku sii jeednaa anaga badooyintii diina waa saarana boqolkiiba 10 ganacsi ka badan ayaa maro waa meel 10 bahar ahmarka waxa la yiraahdaa 10 saldhig oo waaweyn oo adduunyada ay leedahay ku taal oo baysa badooyintii diina in la isku fidiyaa qaaradda Afrika loo socdaa mustaqbalka meesha waa jira meel khayraad leh oo aan dhisnayn khayraadkeeda laga faa'iideysto iyadana la dhiso dadkaasi ay wax u iibsan karaan loogu talagalay intaas marka degantaa oo aadan fahamsanayn amba aadan lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo qaangaar ah oo dantaada raadiso danta adduunka ka leeyahay barbar dhigto midda adiga aad leedahay haddii aadan helin waa khasaaro weyn baa ka imaanaya dhankaasna waxaan ka wadnaa inaan helno aan wadnaa siyaasad arrimo dibadeed oo qaangaar ah oo hamigeedu uu yahay nolosha muwaadinka Soomaaliyeed 1 2 3 10 waxa la xil saaray waxay tahay calanka buluuga ciid oo ka taagan yahay oo dawladda Soomaaliyeed dadka ku hoos nool in mudnaanta la siiyo oo dadka Soomaaliyeed ay helaan nolosha laa'iq u ah intaas markii la isku helaa dhalinyaradu sida ay ka bixi kartaa waxbarasho hagaagsan la heli karaa caafimaad hagaagsan la heli karaa waxa ay ugu jecel yihiin oo shaqada la heli karaa shaqada waxay reebaysaa marka saboolnimada marka aad yaraysid ama wax badan aad ka qabatid waxa meesha ka baxo macluusha Soomaaliya waa meesha kaliya ee dunida gaajo loogu dhinto ciiduna ma gabin
xuduudeennuna ma gabin laakiin taladaana gabtay tala xumida ayaa adduunyada waxay yidhaahdaan dal faqiir iyo dal hodana ma jireen dal tala xun iyo dal aan tala xumaynaa jiro hadday taladu toostane meeshaan waxba oolina aadanu wax ka soo saari karaa wadamo badan oo dunida ka mida webiyo ma laha bada waaweynna ma laha laakiin dhallinyaradooda maskaxda dhallinyaradooda ayay waxay ka dhex sameeyeen webiyo iyo bado iyo barwaaqo dunida wadamo aad u horumarsan oo xataa biyaha cabaan dibadda ka keensadaa jiro laakiin wiilashooda iyo gabdhahooda maskaxdooda ayay si fiican uga faa'iidaystaan waxa aan wadno arrimaha noocaas ah waaye inta aan wadno waxaan rabnaa inaan wax ku kordhino waxay wax kula kordhinaa caqliga Soomaaliyeed oo meel kasta jooga markaan dhageysano zoomka waa kula xiriirnaa telefoonka waa kula xiriirnaa waxaan qoraalada waa isdhaafsanaa dibad joogga Soomaaliya tayada badan laakiin waxaa naga go'an qof kasta oo Soomaaliya oo aan fadhi ku arki karno inaan fadhiga ku aragno muddo aan yareyn baan joogi doonaa halkan haddii Ilaahay yiraahdo dadka goonigo akhyaarta waxaan rabnaa inay noo yimaadeen qaarna anaga u tagi doona fadhiyada ugu tagi doona maqaawiirta ah khudbad dheer ugu talagelin mana baa warka dheer aad iyo aad u mahadsantihiin saxaafadda qaybaha caafimaadka qaba tabinaysaan haddii Ilaahay yiraahdo dalkiina iyo mustaqbalkiina waa mushriq waa ifaya xogaaga tala xumadana meesha laga saaray haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan ugu dambeyn iraahdo dadka Soomaalida waxaa waswaasinay baryahan meeshii Muqdisho ahayd madax ahayd ama mashaqo ka dhacda oo dhibaato ay ka timaada waxaan u soo jeednay aan ku dadaalaynaa waliina ku dadaalaynaa meel marin doonaa biidnillaahi in aan wax gacan ka hadalad meeshaas ka dhicin dabcan dawladda joogto dawladda hamiga iyo awoodda ugu weyn nabadda iska leh laakiin iyadana waa ku boorinaa annaguna waa ka shaqeynaa dadkana aad waxay u xasuusayeen xilliyada adka ay soo mareen cod nabadeedaan dadka wax ugu sheegnaa cali khalifa allah u naxariista waxa uu dhihi jiray hogaamiye kooxeedada hadda iyaguna waa dad Soomaaliyeed kulli Soomaalinimo kama marno oo waa waxba oo la isla gaari karaa hadda dawladda hadda noo dhisan waa dawlad Soomaaliyeed markaan ugu baaqno oo ugu celcelino oo ugu baaqno oo ayna dardaraan oo dul qaadano ayna dardaraan oo dul qaadano marka dambe waxaan isleenahay iyaga naftooda isku xishoon karaan inaan ka xishoosiinaan rabnaa inaan ka sabar badinaan rabnaa inaan samaha uga badinaan rabnaa in sidii la ahaan jiray aan ku celinaan rabnaa